كل مسؤولين تيجي هالك فردها هو مسؤولين تي حزب الوطني أنا جي صاحب كي عثمان وحنو نهاي حبناها حزب الوطني وهو وكيل كاه كوني شكل دور شوي كقرن كهير قرن وحنو يكون إن ندلس سينو إحنا كلي ما نحن مري كوميشن كه iyo halka imika wax marayaan iyo talaabada deen nala gudboona markaan in nala haboon inaanu qaadno xubnaha iyagan commissionka uga wakiilka ah xisbiga inta badan loo yaqaan task force-ka oo ka mid ah laba xubnood oo saddex xisbiba ay ku leeyihiin commissionka doorashooyinka qaranka waxaanu idinku yeedhnay inaanu idiin caddayno shalayto iyo doraadba gudoomiyaha xisbiga wadani ahna musharaxii madaxweynuhu wuxuu yimid komishanka doorashooyinka qaranka xaalado badan oo cabasho leh saameyn tabanna ku yeelanaya doorashooyinka ayuu musharaxu kala hadlamay komishanka doorashooyinka qaranka shalayna waxay codsadeen in qoraal lagu soo gudbiyo cabashooyinka iyo waxyaalaha uu xisbigu ku codsanayo dee in la yeelaba wuxuu ku gudbiyey qoraal rasmi ah ayuu ugu gudbiyey commissionka waxaa ugu sii weynad gobolka maroodjecsiba degmada Gebile tirinta codadka iyo xaaladeeda guud oo ma garanaysa runtii aad ugu hadlay musharaxu qoraalkana aanu ku sheegnay iyada iyo qaybo kale oo ka mid ah gobolkaba arrintaasoo ilaa imaka komishankii doorashooyinka qaranku tallaabo uu ka qaaday aanu ku soo celinin musharaxii hawshiina ay sidii u socotay annagoo ah komishankii dee xubnihii ee u matalayay xisbiga laftayda dee wax war ah oo nalaga siiyey oo la yidhi ku wargeliya xisbigii sidaa ma jirta ilaa saacadda aynu joogno sidaa darteed waxaa nala habboonaatay oo nala gudboon inaanu dee ku celinno mas-uuliyiintii xisbiga siiba musharaxii xisbiga ahna guddoomiyihii xisbiga inaanu ku celinno arrintaasi dee halkay maraysa iyo ilaa imaka inaanaan wax wara dee aanaan ka hayn arrimahan doorashooyinku waa asaasi haddii arrin laga soo cawdo oo dhaqso wax looga qaban waayo dee wax badan buu saameyn badan buu keenaya cabashadaasi keenaysa haddii dee wax laga qaban waayo ama ha aqbalo ama yuu aqbalin go-aanka uu commissionku arrinkaa ka qaata waxay dee inuu ku soo celiyo musharaxii iyo guddoomiyihii oo uu ku qanciyo maanaa filayn dee in hawshuna iska socoto un laysna ma garanaysaa dee runtii sidaa laysu ma garanaysaa dee ignore gareeyo oo laysu dhegamariyo oo dee aanay arrin soo noqon maanaa filayn sidaa darteed waxaanu caddaynaynaa inaanu dee talada ku celin doono musharaxii madaxweynaha ahna guddoomiyihii xisbiga taladuna dee ay markaa iyaga dee u taallo go-aankay ka qaadan doonaan musharaxu arrimaha aan ka hadlayo oo ma garanaysa cabashada ah aad buu u faahfaahiyey oo komishanka doorashooyinka qaranka ugu sharxo ugu balbalaadhiyey waxyaalaha uu ka cabanaya iyo waxyaalaha ay keeni karta intaba aad buu runtii ayuu u balbalaadhiyey laakiin dee ilaa hadda waxa aanu isleenahay waa laga qabtay nooma muuqdo sidaa darteed dee go-aankaasaanu anaguna haddii alla ku celinaynaa intaasaan doonaya inaan idin caddeeyo cismaan nabl wuxuu ku daray isaga bismillahi raxmaan raxiim aan ku kulano hoolkan waxa weeye doorashada 13 bisha ka qabsoontay November 2017 wadanka Somaliland oo sidii dee caadada ahayd inay wadanka ka qabsato doorasho xor iyo xalaal ah waxaanu aragnaa oo soo baxday commissionkuna ay iska dhaga mariyeen
cabashooyin badan oo xisbiga wadani usoo gudbiyey waanay soo kordhayaan mar walba inay doorashadu ka baxday xaydaamkii xor iyo xalaalnimada ahayd inay ka baxday inay ku shubasho baahsani ka dhacday gobollo badan oo waddanka ka mid ah inay ka dhacday sidaa darteed markii aanu codsannay commissionka doorashooyinka aanu ka codsannay in wax laga qabto arrimahaasi oo dib loo eego cabashooyinka oo dib loo jeegareeyo waxyaabaha aanu raadadka aanu hayno waxay kaga jawaabeen aamusnaan sidaa darteed waxaanu hadda laga bilaabo ku wargelinaynaa dhammaan task force-ka inay hakiyaan intaa xisbigu uu talo ka soo saaray annagu waxaan wakiil ka nahay xisbiga shaqaanu wakiil uga nahay haddii ay shaqadii ay u socon weydo si saxa ay u socon weydo go-aanka kama dambaysta waxa le xisbiga isaga go-aan ka gaadhaya musharaxa iyo madaxda xisbiga iyaga ka gaadhaya go-aan laakiin annagu inaanaan shaqada sii wadi karayn un bay tahay inaanu ilantan iyaga ku celinayno iyaguna ay go-aanka kama dambaysta ay ka gaadhayaan saa darteed laga bilaabo hadda dhammaan task force-ka gobollada iyo degmooyinka waxaanu hakinaynaa saacaddan laga bilaabo ilaa iyo go-aanka xisbigu uu ka soo saarayo inaanu shaqadii joojino waxyaabo badan baa dhacay oo mushkiladaa saa darteed ma sii wadi karno hadda go-aankana xisbigaan ku celinaynaa dhibaatooyinka jira commissionka dee waan u gudbinay qoraalaan u gudbinay dacwadeeyaan u gudbinay waxaan u gudbinay inay wax ka qabtaan waxaan u gudbinay inay nala eegaan laakiin ilaa iyo imaka wax nalala eegayna ma jirto waxay ka qabteen oo inoo sheegayna ma jirto sidaa uu sheegay xuseen uu sheegay saa darteed hadda saasaanu go-aan ku gaadhnay xisbigaana go-aan kama dambaystaa musharaxa iyo xisbiga ayaa qaadan doona waxyaabaha aanu haynana wax fara badan oo baanu haynaa oo ah inay xuduuddii xaydaamkii sharciga ka baxday waxaa ka mid ah in codadka ku jira dhammaantood ay voger yihiin sanaaduuqda xisbiga kulmiye looga codeeyey kani waa buugaag waa buug ay soo daabaceen xisbiga kulmiye uu soo daabacay waa buug waana waxa ku jira sanaaduuqda hadda yaalla hargeysa yaalla berbera yaalla boorama iyo meelo badan oo kaleba yaalla saa darteed waa buuggii codaynta lagu codaynaya xaashadii lagu codaynayay wey kuwaasoo miidhan baa ku jira dhammaan waraaqaha d1ka ah natiijada goobta lagu soo qorayey dhammaantoodu way iswada khilaafsan yihiin waxyaabahaanu leenahay ha la eego waxyaabahaanu leenahay ha la jeegaray waxyaabahaanu leenahay ha la tiriyo oo dib ha loo eegana taasaa ka mid ah marka saa darteed maadaama anagu howlwadeennadii nahay commissionka uga wakiilka ah xisbiga waxaas markaanu aragnay aanu dhacdooyin badan oo kalena aanu hayno insha allah aan soo bandhigi doono marka ay xilligeeda ku habboonaato ayaanu hakinay waxaananu go-aanka madambaystaana xisbiguna uu haystaa bugaagtan uu hayaa iyo dhacdooyin badan 1,000 iyo dhowr boqol oo dhacdaanu diiwaan gelinay oo ay commissionku dhagaha ka fureysteen saa darteed doorasho xor iyo xalaal ah uma aragno in Soomaaliland ka dhacday go-aanka madambaystaana xisbigan ku celin doona aad iyo aad baa u mahadsan gobolkan Maroodi Sheekh qaybihiisa kala duwan baan u gudbinay in qoraalka iyaga ay ku salaysnayd waxa kale oo u gudbinay maadaama mushkilada dhacday 40% in la jeegareeyo sanaaduuqda gobolada in la dib loo tiriyo oo si random loo eego marka si mushkiladan ay aanu aragnaa markiiba sanduuqa goobta koowaad iyo goobta labaadba way ka soo baxaysaa markay cadaato marka la arko inay mushkiladu jirtana waxay keensanaysaa in dib loo tiriyo dhammaan codadkii dib loo tiriyo si ay u soo baxdo codkii xalaasha ah u soo baxdo way xeerku wuxuu dhigayaa haddii waraaqo ka duwan waraaqihii loogu talagalay codeeyuhu ay ka soo baxaan waxa weeyaan waxa laga saaraya waraaqaha baadilka baa laga saaraya kadib natiijadu waxay noqon doontaa waraaqihii saxda ahaa ee loogu talagalay codbixinta ay noqon doontaa laakiin kambanigii horena waan uga hadalnay commissionka waanu gaarsiinay marka horeba inaanu concern ka qabno kambaniga waraaqaha soo daabacay Abu Qurayb inaanu concern ka qabno commissionku way ogaayeen
haddana kamberigii waraaqaa soo daabacun baa kuwan lasoo daabacay oo laga soo daabacay kamberigaasina waxa weeyaan waa kambani imaaraadka laga leeyahay imaaraadka iyo xisbiga kulmiye xiriirka ka dhaxeeya waa ogtihiin in Somaliland ba uu iibsaday kadibna uu haddana ku dacmiyay inuu arrin qorshahan ay tahay qorshihii uu ay markii hore wada galeen ay isla gaareen inuu tahay magacaygu waa Bedri Koosar area TV ayaan ka socdaa arrinta shirkiina jiray miyaan loo arki karin markii la filayo dhawaanay commission-ka ku dhawaaqaan natiijada ugu dambeysay inaad u aragtaan in si laydinka horeeyo oo aad ku qalqalinaysaan arrinta natiijada ku soo saaray waxa kaliya doonaa waxa weeyaan inay doorashadii dhacday natiijo sax ah ay soo baxdo commission-ka doorashooyinka qarankuna uu ku dhawaaqo natiijo sax waxa aanu diidanayna waxa weeye in lagu dhawaaqo natiijo sax inta natiijada la gaarin mushkiladda taala ayaan leenahay waxa laga qabto si ay u soo baxdo natiijo sax ay u soo baxdo anagu natiijo sax ah waa tan doonayno laakiin waxaanu ka hadlaynaa wixii khalkhale ee ku yimid doorashada in laga saaro si natiijo sax ay u soo baxdo laba hadaloo kala duwan baad tilmaamtay digniga doctorku oo tilmaamay isagu in commission-ku bixiyeen si tadan uga baxday adiguna inay imaaraadku bixiyeen arrintaa badalka ugu yeero buuggan aad arkaysaan waxa weeyaan waa buug dhammaantii xaashadiisu serial numberkiisu ay isku mid yihiin marka waxa weeyaan commission-ka doorashooyinka qaranku buugaagta iyaga gacanta ku hayay muunada iyo waxa buugga uu ka kooban yahay iyo featureska buuggu leeyahay commission-ka doorashooyinka qaranka gacanta ku hayay buugga lagu codaynayo marka buuggana waa buug la soo diyaariyey oo lala soo diyaariyey buugaagtii commission-ku ay soo daabaceen marka kulmiye yaa gaadhsiiyey buuggan inuu kulmiye soo daabacay yaa gaadhsiiyey marka waxay noqonaysaa in shuraako xooga ay ka dhacday bay dhacday Somaliland inay yaqaanaan magacayga waxa la yiraahdaa Dr. Maxamed Yaasiin Xasan waxaan ahaan jiray wasiirkii hore ee kalluumaysiga iyo dekedaha Somaliland imikana ah la taliyaha gudoomiyaha xisbiga wadani musharaxa madaxweynahana wixii la oran lahaa waxay yidhi asxaabtayda halkan fadhida Xuseen iyo Cismaan wax kale dheeraadan ku daraya ma jiro wadankan waxay ahayd inaynu qabsano doorasho xor oo xalaal ah inaynu qabsano laakiin waxa noo muuqatay dawladdu maadaama ay waqtiyo badan dib u dhigtay doorashooyinka waxa noo muuqday in loo soo diyaar garoobayay in doorashada soo socota si yaro fudud looga badiyo xisbiyada mucaaridka ah waxa noo muuqatay in la soo daabacday waraaqihii lagu codayn lahaa buuggan aad arkaysaan maaha buug forgery waa buug asal ah waa buugaagii lagu codaynayay buug walba page wal oo ku yaala waxa ku taala shaabadii ma sheegayo deegaanka uu ka yimi laakiin waa la heli doonaa page kasta waxa ku yaala shaabadda waxa lagu dhufan karaa buuggan marka qofka cod bixiyay uu galo safka la eega kaadhkiisa qofka ugu dambeeya ee gudoomiyaha goobta ayaa wuxuu u dhiibayaa warqadda hortiisana uu ku shaabadaynaya dabadeed markaas uu qofku la galayaa saddexda goobood ee bannaan xisbiga ucud kulmiye iyo wadani saddexda meelood buu meel calaamadinaya meeshii uu doonayay waad aragtaan buuggii waxa lagu shubtay goob kasta oo Somaliland kamid ah waad ogtiin early mar allaala markii la bilaabay doorashooyinka gobol kasta oo Somaliland kamid ah xisbiga wadani baa hogaaminayay markii dambe ayay la soo baxeen baxaladan iyo sanaaduuqdii ciidankii baa la adeegsaday commission-kii baa la adeegsaday cid walba waa la adeegsaday waa ka doorashadii Somaliland waana bahal dawladdu ay soo commission ku soo daabacay
sida uu gacanta dadweynaha ku galo bahalka dawlad commission ku soo daabacay de waa wax la isweydiin karo